على هذا عن جنود من المجال. بسم الله ديما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. habeen wanaagsan saxaafadda sharafta leh ee isugu timid goobtan waxaan doonayaa runtii inaan la wadaago arrintii dhacday maanta oo ahayd wax sharciga iyo caqliga ka fog waxaanu ahayn wafdi ka yimid dalka Turkiga una socday magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland annagoo halkaa kaga qayb geli lahayn xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay diyaarad kale ayaa naga qaadi lahayd garoonka Aadan Cadde taas oo aanu haysanay tigidhadeeda markii aanu boarding passkii helnay ayay xukuumaddu waxay soo saartay qoraal ay leedahay diyaarad kasta oo aadaysa Kismaayo waa in ay 24 saac ka hor ogolaansho soo weydiisataa aviationka kabacdina qoraalkii saacadda la soo saaray ayaa lagu fuliyay diyaaradii in lagu kansalo duulimaadkeedii halkaas ayaana lagu baajiyay safarkii wafdiga iyagu ka mid ahaa oo ay ku jireen shacabweyne Soomaaliyeed oo u socday iyaguna Jubbaland dadkaas oo maaragtay shacab iska duruufaysan ama maaragtay noocyada kala duwan ee bulshada isugu jiray waayeel dhalinyaro iyo haween dabcan qofka safaraya waa fahmi kartaan waxaad kaloo garan kartaan qorraxda kuleelkeeda iyo qaabka lagu soo galo airportka dadkaas oo dhib aad u fara badan kala kulmay wixii maanta meesha ka dhacay iyadana aad iyo aad baan runtii uga xunnahay si gaar ah waana ka tacsiyeenaynaa in shacabka aan loo aabayeelin aan la ixtiraamin aan maaragtay loo turin iyada oo maaragtay dowladdii iyo calankoodii maaragtay lagu dulminayo arrintan meesha ka dhacday waxay arrin غير qaanuun ah oo ka soo horjeeda qofka muwaadinka xorriyadiisa in uu xilligu doono safri karo maaragtay meesha doonana dalka uu ka aadi karo iyadoo aysan jirin wax dambi ah ama wax ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala oo lagu haysta aysan jirin in si maaragtay ula kac ah oo ku salaysan qiimeyn ama maaragtay rabitaan shakhsiyadaysan loogu xadgudbo qofka madax bannaanidiisa oo cambaareynayna waana ka soo horjeednaa wixii intaa ka soo kordha oo maaragtay uu xisbiga go'aana ka qaatana waxaan jeclaan lahay inaanu dib idin kala wadaagno haddii ilaahay idmo laakiin waxaanu kaliya rabnaa inaan idiin sheegno xukuumadda dadka hadda joogaa inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan dhigteen ay maaragtay ku wada joogeen ayna ku socdaan sida qardad jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed oo laga yaabo inuu meel kale sii gaaro taasna waanu ka digaynaa haddii ilaahay idmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warqad la soo saaraa jirta guddoomiye oo magaciina ku xirran yahay xisbiga ma runbaa mise waa been weli annagu been mana soo saaray thank you